asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaad kusoo dhawaataan cashirkani labaad ee photoshop 2018. daawad halkaad igala socotana waa kanaalka Dini Studio. insha allah waxaan filaya cashirkan inuu noqdo cashir aad iyo aad u fudud, sidoo kalena waqti fara badan aan qaadanin. cashirkan wuxuu ku saabsan yahay qaabka loo sameeyo glass letter. daawasho wacan. ugu horeyn waxaan leenahay file new width 745 pixel and height 440 resolution 300 pixel resolution 300 RGB color 8 bit. then waxaa soo dooranaysaa colorka aad doonayso inaad ka dhigto. create. intaa kadibna waxaad dooranaysaa text tool. fartan waxaa waye flip side PRK. colorkay ku noqonaysaa dooranaysaa. waxaan leenahay just haddaan naga dhig Dini Studio. edit, transform, scale. dhexda keen. okay, waxaan soo gelinaynaa sawir. file waxaa leedahay place embedded this picture AJ. interest ka leh hoosken. kadibna waxaan isku dayeynaa inaan farta waa soo yar weyneyno. waxaa leenahay edit, transform, scale. isku day inaad farta weyneyso. that's right. kadibna waxaan leenahay okay, and I did transform scale si aan farta ula ekeysiino. bas ayaan dooranaynaa. okay, kadibna waxaa leedahay waa qaadaysaa kor geenaysaa. sawirka aad kala ku siinaysaa. intaa kadibna waxaa leedahay control alt V. that's right, it's ready. double click. waxaad tegaysaa Bevel styleka waa in Bevel. technique smooth. so depth waxaan ka dhiganaa ilaa iyo 50. depth 50. size just ilaa iyo waxaan ka dhiganaa ilaa 40 38 oo kale. is a soften 1 degree angle waxaa ka dhigaysaa 130. 130. attitude waxaa leedahay use global light, you have to be jacket. attitude waxaa leedahay 60. that's right. screen ha ku ahaado this opacity, shadow opacity ga 0 ka dhigaysaa. kana waxaa leedahay 100. close counter waxaa leedahay inaan horta magacadeena inaan arkaynaa large list. kadibna waxaa soo dooranaysaa ring treble. intra leedahay is ready. just size-ka waan ku dari karnaa waana ka yareyn karnaa. marka laakiin anaga size-ka waxaan ka dhigaynaa
ilaa 27 isa depthigana waxaan ka dhignay 50 counto imo waxaa leedahay kan 75 counto waxaa soo dooranaysaa shallow slope valley 75 kadibna waxaa leedahay inna shadow or waxaa leedahay sorry waxaa leedahay inna glow kor waxaa leedahay multiple opacity-na 75 soo yareyn kartaa 31 waxaan ka dhiganaa 43 sa noise ma lahan colorkan waxaa leedahay black iyo door okay tan kadibna size-na waxaan ka dhiganaa 24 opacity-na adiga waxaan ka dhiganaa opacity ilaa 26 waxaan u imaanaynaa drop shadow isa black ha ahaado waxaa leedahay kalaban opacity waxaan ka dhiganaa 50 isa angle-na waxaan ka dhiganaa 130 uu yahay isa distance waxaan ka dhiganaa ilaa iyo 10 so distance 10 5 just count waa iska dhaafayna waxaan leenahay okay tan kadibna waxaan leedahay control click select modify expand farta hadba intay laagtay ku xiranta aniga hadda waxaan ka dhigayaa ilaa 8 idan doornaa okay waxaa soo qaadanaysaa ama waxaad leedahay gradient aad ku dhufanaysaa waxaa soo dooranaysaa color just we use for that color then inta kadibna waxaa leedahay new layer geeskaasaa geenaysaa waxaa leedahay shift right click waxaa leedahay shift then right click drag halkaa markaa marayso waa sii daanaysaa it's ready waa inuu diyaar intaa kadib waxaa leedahay control D si aan uga qaadno kii hore ayaan soo qaadana waxaan keenaynaa farta hoosteeda it's ready haatan marka waxaan isku dayaynaa inaan isla sawirkii isaga ahaa inaan soo qaadno waxaa leenahay file just place embedded kadibna isla sawirkii isaga ahaa soo qaadaysaa waxaa sameynaysaa stepska daada aan hore u marnay taas u weyn ma ahan kadibna waxaa leedahay control alt G is ready isagana waa diyaar kadibna waxaa imaanaysaa layerka hore oo hoosa imaanaysaa kii gradient ah ku biinaysaa imaanaysaa waxaa leedahay double click waxaa leedahay bevel kan aad yareynaysaa 50 sida ugu macquulsan waxaan ka dhigaynaa 22 size-ka 65 soften waan ka jari karnaa soften si gabi ahaantiisaba ama waan ku dari karnaa okay aniga soft marka waxaan leenahay halkaasaan genaynaa softiga sidoo kale angalka uu ku jirana saasna waa dhaafi karnaa waxna waa ku dari karnaa sidoo kale screen this just wuxuu ku ahaanayaa screen wax badan waxsaas micnaha u siweyn marka bedelaysid kana sidiisu ahaanaya waxaa leenahay marka inta kadibna waxaa leedahay count waxaan ka dhiganaa rolling slope descending waxaa raadinaysaa rolling slope descending that's right kadibna waxaad ka dhigi kartaa
75 is just aska ah dhimahan da kadib waxaan leenahay setting ka ugu muhiimsan sidaan jeclahay setting markaad imaado kadib colorka black ku ahaado angle-ka ha ahaado 90 sidoo kale size-kana waxaad ka dhigi kartaa size-ka ilaa ay 5 aan ka dhiganaa is ready count waxaad dooranaysaa roll slope descending is ready and opacity-ga waa buuxin kartaa opacity-ga opacity intaan ku dhaafeynaa opacity halkaas ku dhaafeynaa marka color overlay sidoo kale ina galow kan waxaa leedahay screen ka dhigaysaa opacity-ga waxaa ka dhigi kartaa just color white enter opacity-ga waad ku dari kartaa haddii aad doonto waa ka jari kartaa opacity-gana intaasaan ka dhiganaa so noise size-ka 24 waad ku dari kartaa laakiin anaga waxaan ka dhiganaa size-ka ilaa iyo 10 okay inta kadib waxaad u soo laabanaysaa sabavelkii aan u soo laabaneynaa waxaan leenahay depth size softy inaan wax ku darno waay softiga this is just the softy that is the soft kadib waxaan leenahay enter markaad haddana waxaa usoo laabanaysaa textiga hore the first text aan ku qorna Dini Studio usoo laabanaysaa waxaa leedahay double click isagana waxay imaanaysaa bevel emboss softy zero ka dhig depth-ga isku day waxaa ka bedeli karta inaad ka bedesho qaabku ay kugu soo baxayso ayaad isku dayaysaa inaad ka dhigto size-ka waa ku dari kartaa ama waad ka yareyn kartaa hadba adiga sida kula qulmanaata ka dhigaysaa okay annaga qaabkan ayaan kusoo saarnay sida aan rajeynayna in badanna waan isla fahanay insha Allah cashirkan iyo cashiro kaloo ku saabsan Photoshop-ka waxaan rajeynayaa in aan soo bandhigo tan iyo kulanti dambe iyo sidoo kale cashirkani cashir kaloo la mid ah inta aan ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tagay aan isleenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh